السلام عليكم ورحمة الله. saakay gooskaan adii soo buuxiyey hadalka xataa uu idhi waaysa ujeedaan marka maanta firaaqa yeeshay firaaqa badan weli maanta waa idil guriga ayaa joogay. waxaa marka su-aalihii la isoo weydiinayay ilaa dadkii snapchatka iyo su-aalaha igu soo weydiinayay dadkii commentigaba inuu su-aalahooda ka jawaabo maanta inta awoodo. ilaa su-aalo badan hayaa marka waxaa ka jawaabayaa videogiiba 2 su-aal ayaa ka jawaabaya 3 ilaa 4 video ayaa ka dhigaa marka maxaa yeelay hal video dheeraad ka dhigo qof walba su-aashiisa inuu sugi waayo ama su-aashiisa marka video hore daawado kuwa reer ayaa ka cabsaday marka su-aalahana kuwii macnaheed video badan aan ka sameeyay su-aal mar labaad marka video ma ka sameynayo maxaa yeelay su-aasha ay weydiisay videoda ayaa ka heli kartaa linkigan description ka dhigi doona su-aalihii aanan ka jawaabin. su-aasha ugu horeysa waxay leedahay uur ayaa leeyahay maalmiiteen karayaa video mid lamid sidaa lamid ayaa ka sameeya hadda hore ayaa filaya laakiin exactly isku mid maaha. haa maalmiiteen karaysaa almiita kaliya maahan faa'iido badan ayay ku leedahay inaad almiitaysid marka leedahay uurka. maxaa yeelay websitekan babycenter.com la dhahay ay akhrinaya daaya maxaa yeelay uurka iyo waxaa khibrad weyn uma lihi marka research yar ayaa sameeyay. waxaa la dhahay qofka uurka leh almiitayo macnihii faa'iidooyin ayay u leedahay askaliya maahan ubadka xataa uurka ku jira ayay waxa u leedahay faa'iido. midda kalena waxay ka ilaalinaysaa waxay ku sheegeen pre-eclampsia wax la dhaho. pre-eclampsia waxaa weeyaan dumarka uurka leh ayo high blood pressure iyo waxaas iyo weight gain inuu ku dhaco marka uurka leeyihiin dad dumar badan ay arkeen ayaa filaa. marka uur leedahay jimicsatid marka waxaa ma kugu dhacayaan ayaa maqlay halkan website ku qoran yahay haddaa rabtidna qoraal dheer ah asana linkiga dhigi doona descriptionka. laakiin dee su-aasha waxay tahay sidee u jimicsanaysaa ruuxa uurka leh jimicsin waxa uu sameynayaa maxaa yeelay qof uur leh iyo qof caadiga isku orod ma sameyn karayaan isku training ma sameyn karayaan marka jimicsi noocoo sameyn karaya jimicsiga noocan halkan ayaa lagu qoray. kow midda ugu muhiimsan waxaa waay horta inuu wadnaha garaacmo oo micnihii socod orod yaroo tartiiba inaa howl yar qabatid inaa biro yaroo qafiifa qaadid wax un wadnaha garaacmaya ayaa muhiimada koowaad laga dhigay. labana waxaa laga dhigay healthy diet healthy ay cunaan maxaa yeelay dumarku markay uurka leeyihiin haddee cunto nadiif ay cunin weight gain badan ayaa ku dhacay ayaa layidhi. marka waxaa filayaa inaad su-aashaada kaga jawaabo oo ahayd ma almiiteen karaya anoo uur leh waa almiiteen karaysaa faa'iidooyin badan ayay ku leedahay inaad almiitaysid. okay su-aasha labaad waxaa weeyaan nin dhalinyaro ayaa soo weydiiyey wuxuu yidhi mahadsanid brother su-aalaha videoyada mar walba ayaa daawada zaid ayaa u helay marka waxaa rabay hal su-aal inaan ku weydiiyo. waxaan ku weydiinayaa six pack waxaa la dhahaa murqaha ragga caloosha ugu soo baxa dumarka xataa way kasoo baxaan laakiin badanaa ragga six pack iyo xabadka shafka chest sidee muddo 2 bilood ugu dhisi karayaa. horta waqtigaa sheegtay waqti zaid u yar waaye laakiin 6 pack wax weyn ma aha 6 pack ilaa 10 maalin ilaa 20 maalin lagu soo saari karayaa waa haddii hilibka aa leedahay uu yar yahay. waxaa ma ka wadaa macnihii haddii body fatkaaga percentage jirkaaga uu yar yahay sida macnihii haddii calooshaada falaad tahay hilib inta halkan kaa saarneen 6 pack waxaa ku xiran tahay bes inaa almiitaysid oo weight aa ku almiitaysid meesha caloosha weight la-aan almiitaan jirtay. haddii macnihii marka hilib uu ku saaran yahay waxay la tahay in 2 bil waqtigaa zaid uu yaryahay maxaa yeelay hilibka halkan kaa saaran adoo iska ridin 6 pack ma kaa soo bixi karayo hadduu kaa soo baxna ma muuqanayo. xabadka chestigana wuxuu yidhi shafka sidee u dhisi karayaa. shafka horta 2 bilood ila maaha macquul maaha qof xabad ku dhisi karayo qof walba oo xabadkiisa dhisan aad aragtid waqti ayuu waday jimka. midda kalena isbedel waa sameyn karaysaa sida aan sheegay hadduu body fatkaaga yaryahay hilibkaaga hadduu yaryahay waxaa sameynaysaa push up everyday aniga hadda hore ayaa sameeyey ilaa 30 maalin push up isbedel weyn ayaa dareemay laakiin macnihii xabadkayga muu weynaanin ama qof macnihii bir waqti badan qaaday uma ekaanin. marka waxaa sameysaa un push up everyday 2daas bil jimkana waxaa sameysaa marka jimka aadid 2 days off 1 day off samee xabad 2 maalin
xawadka sameynin maalinta saddexaad samee, 2 maalin ha sameynin, maalinta saddexaad xawadka samee. Xawadkan almiitooyinkiisa waa taqaanaa filaya haddaa qof gym hore u qaaday tahay. marka labadii su-aal video ugu talagala waa la gaaray. video xigan waxaa ka sameynaya labada su-aal xigta sida ayaa u sameynaya video walba 2 su-aal ayaa ka jawaabaya. Please haddaa video ka heshay ama wax ka faa'iiday, subscribe, like, asxaabtaadana la wadaag.